اوكي دي تي اس اس بس هذا وحسبين دونه لحكم بان قطي لحكم بان قطي ميقان كقاضيا كان اسكي بي 270 دور اي شيء سيستمك يس اكوس بحي ما انت لما سوغاي اريا انتو دافايو is a quick hit and run baa la tanoo kale waa ku dhufo ka dhaqaaq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saamida youtube page maanta waxaan leeyahay share loo DTSS ara waxoogaa yar aan ka tuso qofka interest gareynaya stock marketka meelaha ugu riski yar laga gato oo weli aan ku faa'iido all the time wax mataqaanaa dhamaanaya ma aha riskiga yar all the time mataqaanaa waa meelahan ka faa'iido waay uu khasaaraha yar waa almost ku dhihi karo zero risk la riskiga aad buu yaryahay laba waxood ba ugu yaryahay system markuu dhaafaayo dadka dhan waa eeganaya ku gadanayaan hadduu level 2 ku tuso in wax badan la gadanayo at the same time waxa faa'iido aad ka raadinaysid aan ka raadiyo ma badna 4 cent 3 cent 5 cent so 5 cent 3 cent the more chance of hadduu marka meesha dhaafo inuu 5 cent iyo 3 cent uu faa'iido aad ka helaysid maadaama aan ka raadin 10 cent iyo 20 cent على share faa'iido aan ka raadin oo faa'iido tahay maadaama khasaaraha la dagaalamayo ilaa marba aan soo koobo okay this is my target is just 4 cent a share my target is just 6 cent a share hadduu u dheereeyana dee wuxuu ku orda alxamdulilah waay yahay laakiin waxaa ku xisaabtamaa inuu targetkayga yahay oo keliya less than 5 cent على share aan ka faa'iido oo just in and out waa gelaysaa waa soo qaadanaysaa haddana meel kale u fadhiisanaysaa waa soo qaadanaysaa marka saas waxaa ku subinaysaa $1000 a day ma fahamtay marka halkan chartka waxaad ugu jeedaan calaamadda waxaan ku gatay halkan candlekan oo redka ah oo flartan blue ka hooseeya baan ku gatay laakiin markaan gadanayay green buu kaa kalu dhaafayay $4 waxaan ku gatay I think waxaan ku gataa malaynayaa I think 435 aan filayaa markii aan gadanayay 439 waa iska iibiyey 4 cent faa'iida 6,000 oo share 200 I think 240 aan filayaa yes 240 oo weliba waxaan dhihi karaa waa few seconds very quick ah waaye waa meelaha ugu riskiga yar oo laga gato so let's play the video. Okay, DTSS let's see how to spend on لحكم بان قطي لحكم بان قطي ميقان كقاضيا كان اسكي بي لو okay isla markuu iska iibiyey very quick aad iyo aad waxaan iska iibiyey mataqaanaa waa few seconds waaye marka 200 iyo $40 baan ka faa'iiday kaas $240 profit waa DTSS marka maxaa dhaca markaan saas isaga gaday log waxaa dhacay kor buu gaaray right u-turn buu soo suubiyey redkaas kanalkaas had buu isku bedelay kor buu tagay 439 buu tagay wuu soo noqday all the way down wuxuu tagay VWAP-ka marka faa'iido waa ka helay at the same time de markii uu guudka intuusa bilaabana waa ka booday dad badan baa ku khasaaray oo iska dhex fadhiista meesha marka in la iska dhex fadhiisto istaaga ma habboona idaan kula talinayna ma jiro in uu qofka iska dhex fadhiisto suu mataqaan oo uu dhaho ii sheegaa faa'iido badan baan rabaa inaan ka helo which is ridiculous right
waan iska iibiyey. Oh my god, iska hoos baxay very quick. 3 senti oo faa'iida ah. Oh my god, lagu ordi haddana. So hadda halkaas markay hawsha marayso oo halkaas ay taagan tahay ku boodi maayo mar kale. Kana waxaan hayay 3 second 6,000 oo share oo halkii share baan ka faa'iiday 3 cent $180 faa'iida. The interest waxa ah kan labaad move midka labaad oo meel fiican ka gata asagana asaga laftarkiisa wuxuu dhaafay resistance levelkii aan rabay inaan ku gato waa u dhaafay. marka danta waxay ugu qasabtay inaan view level 2 aan ku gato. resistance aan rabay inuu dhaafo aan sugayay maantadii waxay $4.27 inuu dhaafo, laakiin wuu dhaafay. laakiin waxay noqotay inaan aan cerisada dhibaata keentaa waa lagu khasaaraa. so share hadduu dhaafan ma cerisado waan sugaa janiskana la egtaa. so janiskii labaad waxaan ka helay level 2ga itusay inuu share badan la gadanayo. let's play videoga. halkaas waa ay dhaafay oo resistance levelka $4.27 ayuu ahaa. wuu dhaafay mana celisanin because khasaare keenta celisashada. kor calaamadda kor mataqaanaa waan kor u qaatay saan u hubsado meeshaas uu ka soo noqday maadaama uu kanar cusub bilaabmay oo kanarka cusubna hadda uu raj sheegayo guud uu sheegayo. waxaa rabaa mar hadduu kanarkaa isbedelo green isku bedelo meeshaa ka gadan doono baan calaamadsaday $4.60 eridaas waay. waxaa dhacaya ayagana markii kanarka ama red buu sii ahaanayaa mise green buu isku bedelayaa. hadda still red waaye. mar dhow waan gadanayaa. halkaas hadda halkaas gotay. halkaas isla markii gatayba saas aan baa erewa baalkii waa booday $4.65 ku gatay. waa ilbriq 3 second baan isaga iibiyey 3 second. hadda waxa dhacay eeg marka waa booday soo ma jeed waana iska iibiyey isla markiiba. halkaas waxaan ka qaaday $180 waa 3 cent waaye. wax lacag 3 cent wax badan uma muuqato sometimes, laakiin when it's coming staaga dhanka staaga lacag badan waaye. waa $180 oo aan ku suubiyey 3 second. 3 second anoo gurigayga jooga 3 second $180 aan ku suubiyey. xaggee laga helaa? you tell me meesha laga helaa. aniga baa meel aan staag ahayn waa ka waay, right? so 180kaas aan ka faa'iiday. laakiin wuu sii socday ilaa wuxuu gaaray kanarkaas kanarkaan ku gatay ilaa wuxuu gaaray $4.97 buu gaaray, right? aniga waxaan iskaga iibiyey markaas waxaan iskaga iibiyey $4.68 baan uga baxay, laakiin wuxuu gaaray $4.97. haddaan ku jiri lahaa yes, laakiin qaacidadaan ku shaqo saas maaha waa ka baxa isla markiiba si aan khasaaraha ula dagaalamo. taasaan qabatimay aniga. taasaan qabatimay oo aan faa'iidadeeda arkay. marka wax kale kuma saqajaamo isla marka waa gataa wax yar baan sugaa waan isaga baxaa. hadda eegno kanalkan saddexaad this one iyo kanalkii kan meesha bal isku qaab waa marka halkan la marayay iyo marka halkaas la marayay isku qaab ahaayeen. waa ku gadan karay intaan calaamadsado intaan halka calaamadda aan u dhigto markuu green kala bilaabanayo waa ku gadan karay, laakiin maan suubin xoogaa waan ka baqay. waxaan xalaal caleeg iska sug. marka qaacidada tan haddaa charti hadda eegtid how many times buu soo noqday
here, right? Let me see. halkaas waa soo halkaas baa ku gadan kartay, right? Also waxaan dhihi karaa halkaan oo lagu gadan karay, right? asoo ada markaas dhaafiyin waan gadan karnay. Also waxaan dhihi karaa halkaan waa lagu gadan karay. marka haddaad chartiga eegtid qaacidadeetan aan isticmaalo wax marar badan bay shaqaysaa, aad u badan. waxay u baahan tahay keliya dulqaad yara. VWAP markuu dhaafi waa gadan kartay, right? haddaa VWAP ka hoose ku gadan laheedna waa halkaa ku gadan kartay. homan taas may soo noqotay. also haddaa geesi tahay nin balaaya ka dhacda halkaa ku gadan kartay, right? here so all these move anta calaamadinayo mid walbaba 4 cent iyo 3 cent waa move gareeyay. so waa 10 times ka badan, 30 40 times uu soo noqdo maalintii. oo every time haddaa meel la eegtay meelaha riskiga la eegatid 3 cent oo ka qaadaysaa, 4 cent oo ka qaadaysaa, right? marka waa minimize gareynaya riskiga. faa'iidadaas bay leedahay in la minimize gareeyo riskiga. taas baan rabaa inaan idinla wadaago. anyway intaas inaan idinla wadaagaa rabay. thank you for watching. haddaan ugu cusub tahay kusoo dhawow saamiyada YouTube page. fadlan subscribe ana notification daaro. hadda hore aad meesha imaan jirtayna you welcome. ana kaa maad celinaynaa mahadsanid. also subscribe haddaad weli aad oran. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.